gabadh walaashay waxay tiri waxaan tagay airportka wadaadkaygii oo imaanaya aniga iyo ciyaalkaygii dabadeedna ciyaalkii uu hagsiiyay anna way iga tagay arrinkii waan ka xumaaday markaan ku yiri saamaxaad igu gashina wuxuu yiri ceeb weeye meelahaas oo kale la iskuma maaragtay salaamo anna aad baan uga xumaaday bay tiri aniga laftigayga ii sheegtay waxaan ku yiri wuu ka khaldan yahay marka sheekh waa inta waxaan dhihi lahaa inaad ka xumaato sax maaha xumayna maaha kumuusa xumaynin laakiin maxsharkaasi meesha la wada taagan yahay ee dadku idin wara arkayaan ayuu ka xishooday inuu kugu dhunkado marka xishoodkuna diintuu ka mid yahay alxayaa min aliimaan buu nabigu sal alla alayh wasalam xishoodku iimaankuu ka mid yahay ruuxaan xishood lahayna diin ma laha marka wadaadku kuma xumaynin kumana necba adaa iska dhaadhiciyey laakiin wuxuu ka xishooday inuu meeshaa kugu dhunkado waxaanan u malaynayaa guriga markaad tagteen inuu kuu qalleeyey oo uu kuu guday oo waxaad ka rabtay inaad ka heshay baan u malaynayaa haddii aadan adugu xanaaqii kula tegin marka arrintaasi waa arrin saxa waaye waxaad iska dhaadhicisayna sax ma aha sidaasaana munaasib ah nebigeennu sala allahu calayh waalihi wasalam asagoo xaasaskiisa jecel haddana meelaha maxsharkaee dadku wada joogaan kuma dhunkan jirin xaasaskiisa wuxuuse ku dhunkan jiray siday ummahaatulmu'miniin soo warinayaan guryahooda markuu la jooguu nebigu dhunkan jiray sal alla alayh wasalam marka arrintaasi odaygaagu sameeyey waa sax xumaanna ma aha xumaynna maaha laakiin waxaa keenaya xishoodkaa keenaya xishoodkuna iimaankuu ka mid yahay